meel kasta ay joogto dibadda gudaha baadiye beled Soomaaliya waa u jeedin waxana haysto ma ahan jawaare ha laga qaado xilka ha laga qaado ma jawaare sharciga la diidan yahay waxa u dagaalamayna waa sharciga anaka ku nimid sharciga lagu soo doortay sharciga madaxweynaha ku dooranay sharciga ra'iisul wasaaraha ku dooranay sharciga 275 xildhibaan aan lagu soo doortay sharcigaas la rabaa in la burburiyo in la baabi'iyo wadankana hadduu dib u laabanaa 27 sano dib inaan u laabana raali kama nihi dad dhibaataysan nahay Soomaali muxuu ahaa dhibaato badan ay soo martay dastuurkan aan ka qaylinayna in muxuu ahaa lagu dhaqo madaxweynaha Maxamed Farmaajo dastuurkan aan ku dooranay markaan dooranayna waxaan u maleeynayna sharci iyo kala dambeyn inuu noo keenay dadkan ka dhex dooranay wuu og yahay waxaan jibinay ra'yi ahaa reer hebel haddaan laga dhigin madaxweyne kale ma soo baxay nasiib darro aadan aga xumahay caawa ma hadli karo sharcigan aan rabaa in la burburiyo Soomaaliya annaka arrinta gacantayna waa ka baxday Soomaaliya maanta aan la hadlaa war heedahaya wallaahi wa billaahi wa tallaahi bariye ku egtahay bariye la isballamiyay in la burburiyo sharciga gacantaag in laga dhigo gacan iyo lug in la isku daro ما أنا وحنا أهل لأن قدومية إسعزلها قدومية بحاجة شيء كذا متاجنا شيء كذا شيء كوين واي تودن كي الربادب إنه يعيش مساكين تان أو كركود اللي قد قال لماي نبات هذا هيزته الشباب يبلايك اللي قد قال لما يسه نبكر الربادب إنه عليه ورسومالي كع أنا كتبر وايد وأنا لقى حب بشيء ولا خير وادالي يا وحنا هذا كود بد الجوجو كوا جده كجيرو كي جير إرباديو يكي بلد جوجا بقى هذا الشيء أنت سامع بحانك Lewana ketersan Parlavanka. اوكي اوكي مان بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد عن حسن عبد اسماعيل waxaan ka mid ahay guddiga loo xisaaray wada hadalka gudoomiye jawaari xaqiisa ka socday oona diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan la kulannay madaxweynaha shalay waxaan hordhignay laba qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa in wadankan wuxuu leeyahay dastuur in dastuurkiisa lagu dhaqmo oo ah in sanduuq la dhigo goobjoogayaal ay joogaan codka lagu kala baxo inaan diyaar u nahay oo wixii lagu soo doortay gudoomiye jawaari iyo gudoonkaba ah asagana lagu soo doortay aqalka sarena lagu soo doortay dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 65aad waxa uu leeyahay gudoonku waxa lagu dooranayaa xilkana loo qaadayaa codsi saas ayaa lagu soo doortay waxaa muuqata hadda laga soo bilaabo 2004 bisha 14 markii muushikii la keenay gudoomiye jawaari oo ay ku jireen dad dhintay oo aakhire jira oo ay ku jireen dad isbitaallo jooga lagu been abuurtay asagoo jabayl la qiray yaa mar labaad la aqbalay si ummadda Soomaaliyeed loo badbaadiyo codna loogu kala baxo wadanka waxaa ka soo dhacay kumeel gaarka ka baxay kadib doorashadii ugu horeysay waxay dhacday 2012 dastuurkan arkaysaan maanta lagu wada joogo oo magaca la dhaho jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilligaas ayaa la ansixiyay waxaana lagu doortay madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud kadibna haddana waxaa lagu doortay madaxweynaha hadda jooga ee Farmaajo ayaa lagu doortay waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed dibadda meesha joogaanba waxyaabaha aadka yaabka u leh waxaa ka mid ah in dastuurkii la isku soo doortay in maanta la diidan yahay wuxuu madaxweyne ku yahay ra'iisul wasaaraha ku yahay labada guddoon ku yihiin baarlamaanku ku yahay dowlad goboleed ku yihiin waa dastuurkaas haddii la ilaalin waayo oo la dhoori waayo wadankan in loo joogo aad bay u adkaanaysaa waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah
oo la isugu sheekeynayo oo dad badan oo xildhibaano ay dad kale oo mas-uuliyiin ay isugu sheegayaan ha la jabsado golaha baarlamaanka gacmaha ha la taago 200 ciidan ha la soo geliyo beris waxa la galo waxyaabaha aan caawa inaan ka hadalno shalay markaan madaxweynaha la kulanay wuxuu naga codsaday inaan saxaafadda la adeegsanin intuu wada hadalka wado gudoomiyaha baarlamaanka oo la fadhiya ee SMS-ka waxaa soo dhacay gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu leeyahay beri cod baa loo qaadayaa gudoomiyaha hala imaado muushinka waa yaallay arrintaas waa ayaan darro waxay ka burburka ku dhaca Soomaaliya mas'uuliyadda waxaa qaadaya cid wada hadalka ka baxday ummadda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dal iyo dibad santuuq in lagu kala baxan in la diiday wada hadal siyaasadeed in la galo lagu heshiiyay in la diiday waxa la raadinaya inay tahay dastuurka in lagu tunto oo fooda la sameeyo waxaan kaloo fariintan rabaa inaan u diro baarlamaanka wuxuu leeyahay xasaanad wuxuu leeyahay immunity lama geli karo askar gudaha ma geli karto holkiis ma geli karaan fadhigii hore ee baaqday buuqa badan ka dhacay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa lagu qasbay in gaari lagu horgooyo ee taliyaasha ciidanka amraan ee wasiirada ay ciidamada quseeya ay amraan amniga iyo difaaca in gudoomiye baarlamaan xeerkan uu soo qoray annaga amniga meesha waxaa mas'uul ka ah habdhowraha guud ee baarlamaanka mana soo geli karo cidaan ogolaansho ka haysan gudoomiyaha baarlamaanka waxyaaba yaabka waxaa ka mid ah in lagu daadguraynayo oo xarun laga dhigay gaashaandhig xarun loogu duulayo sida ciidan al-shabaab loogu duulayo kale in baarlamaanka laga dhigay oo ciidan lagu qabsado waxyaabaha yaab kale oo hadda taagan caawa aan hadlayna saacaddan kala hadlayna taagan waxaa weeye in ciidan lagu daadguraynayo xaruntii baarlamaanka waxaan rabaa inaad dib idiin xasuusiyo taariikh yar oo dhacday 2016 xilligii doorashadii madaxweyne xasan sheekh taliyihii booliiska xilligaasi janaal maxamed sheekh ayaa asagoo xaflad jooga oo madaxweyne xasan sheekh agtiisu garab taagan yahay ayaa wuxuu yidhi laba xildhibaan nin senatar ah nin xildhibaan oo janaal cabdi qaybdiin iyo sheekhuna maya codka way ku siinayaan taliyaal booliis bay soo noqdaan oo ku taageersannaha 16 musharax oo madaxweyne farmaajo ka mid yahay ayaa warqad wuxuu u soo qoray gudoomiye jawaari waxaan u sheegay iskoola booliisiya inaan doorasho lagu qaban karin sababtoo ah taliyahaas wuxuu la safan yahay madaxweyne xasan sheekh arrintaas waxay dhacday in hangarkiida aado oo xalana doorashada ay ka dhacdo maanta waxaan taagannahay daraal markuu qallaasaa meeshuu ka dhacayay 4 taliya ciidan abaanduulayaasha ciidanka Soomaaliya ciidamadii difaaca loogu talagalay shabeellooyinka ka dagaalamayay in lagu soo daadgureeyay baarlamaanka jidadka laga soo galay xuduudda Soomaaliya waxaa laga dhigay kilometer 4 Hawataako 15 May ayaa laga dhigay waddanka Soomaaliya dabaabada la soo dhigay annaga waxaan leenahay xildhibaanana waa cod qoryana ma wadano basuukiyaal ma wadano zuwagna ma wadano waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah haddii cod ay haystaan sidoo maxaa loo diidan yahay haddii foodadaas maanta ay dhacdo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu aqbalo waa laga yaabaa in waxyaabo badan ay dhacaan aqbalaadaas uu aqbalay bari asana gacmaha lugaha loo taagayaaye ninka loo socdo inuu asaga yahay lana rumaynayo inuu madaxweyne si ahaan karin dad kalena ay ka shaqeynayaan kuna shaqeynayaan arrintaasi lana hoosgelinaya hala socdo arrinta muhiimka mas'alka aan u dirayo dadka ay quseyso ama garan kara ama mas'uuliyadda Soomaaliya saaran waa qodobka kale muhiimka aan ku daray waxaa weeye aan u daray taliyaasha ciidanka Soomaaliya dastuurku wuxuu leeyahay taliyaasha waddanka waa waddan military ma aha waa waddan dimuqraadi ah waa waddan federaal ah taliyaasha ciidanku waa dhexdhexaad amnigu way sugi karaan siyaasadda kuma milmi karaan taliyihii booliiska ee dhahaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo staafka iyo wateen waa leen karnay laakiinse waa ka xishoon oo ciidamo laayo ku filan xabadda la dhaca waan haysanay in maanta baarlamaanka Soomaaliya amnigiisa sugayaa dhaco oo ayaan daro booshinkan waxaa saxiixay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya waxaa saxiixay wasiir dowladda gaashaandhigga Soomaaliya waxaa saxiixay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Soomaaliya waxaa saxiixay wasiirka amniga Soomaaliya waxaa saxiixay wasiir ku-xigeenka amniga Soomaaliya waxaa saxiixay wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxaa saxiixay wasiir dowladda maaliyadda Soomaaliya saddexda wasaaradooda kiiga wasiiradoodii haddii mooshinka saxiixeen si dhaqaalaha Soomaaliya inuu wasaaradda maaliyadda ahaan loogu kalsoonaan karaa in dhaqaalaha Soomaaliya aan sax loo isticmaali karin amnigana taliyana wasuulidda iyo taliyada booliiska ay hoostagaan wasiirka amniga wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanku ay hoostagayaan si loogu kalsoonaan karaa hadda iyaga qayb ka yihiin soo ma aha conflict of interest arrintan dareen waxaa weeye annaga dad xor ah oo nool baan nahay haddii cayo jubleen iyo gabgab iyo indhacdas aan qaadanayno waxaan qaadan lahayn markii maxamed cabdullaahi farmaajo la dooranayo lama dooran karo ayaan dooranay taasaan ku qaadan lahayn
maantana ma qaadanayno annagoo sharciga difaacayno waxaan diyaar u nahay wixii wada hadal ah waxaan diyaar u nahay xal siyaasadeed in la gaaro waxaana diyaar u nahay in codka lagu kala baxo wixii intaas ka soo hara waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo taliyaasha ciidanka ku daadguraynaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya shacabka soomaaliya dal iyo dibad meesha joogaanna arrintaas inay iyaga ay la socdaan baan rajaynayaa waana mahadsanti حرقانك فرصة بسمع shirka jaraa'idka u dhammaaday xildhibaanadana waxay ka hadlayeen arrimaha ku saabsan inuu burburay ama hakad u galay heshiiskii la filayay inuu dhex dhiga baarlamaanka waxay sheegeen inuu fashilmay wadahadal la rabay in la dhexgeliyo xildhibaanada aad u mahadsantihiin wariyaasha shaqada qabtayna waa kuwaan waxaan joognaa villa Hargeysa meel inta badan ay ku shiraan xildhibaanada taageersan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari aad u mahadsantihiin saaxiibayaal